kusoo dhawaada videogii saddexaad oo aan uga hadlayno hababka nafaqada qalalan loogu shubo beeraha. Videogii tan ka horreysay waxaan uga hadalnay placementiga iyo sida ay muhiimka u tahay markii bilowga la isticmaalayo ama deep placement la isticmaalayo. Laakiin videogan waa placementigii, laakiin markaan waxaa la isku dayayaa in la noqdo more precise oo loo dhowaado seedkii ama geedkii in loo dhowaado oo agtiisa la dhigo ayaa la isku dayayaa. qaybtan aan marka maanta ka hadlayno waxaa la yiraahdaa localized placement oo laba qaybood ayaan ka hadlaynaa, qayb la yiraahdo drill placement iyo side dressing. Localized placement marka maxaa laga wadaa? Localized placement waxaa laga wadaa in fertilizerkii la dhigo meesha ugu dhow abuurkii ama mirtii la duugayay iyo geedkii agtiisa in la dhigo ayaa la yiraahdaa localized placement. Carrada oo dhan ama saf dhan lama gelinayay, waa lagu dhaweynayaa individual ahaan geed kasta isaga ayaa loo dhaweynayaa ama geed kasta ama mir kasta iyada ayaa lagu dhaweynayaa si ay sahal ugu noqoto inuu xidid kasta u helo nafaqo ku filan oo isaga agtiisa ah. Marka taas micnaheedu waxa weeye fertilizerkii aad ku shubaysay beerta geed ama mir ayaad agteeda dhigaysaa oo ku dhaweynaysaa, beertii oo dhan kuma firdhinaysid. mishiinkan aad ujeedid oo cagafka ku xiran waxaa la yiraahdaa drill. aad ayuu muhiim ugu yahay wax soo saarka beeraha adduunka. isaga la'aantiisna cuntooyinka maanta adduunka laga soo saaro macquul ba ahaateen waa adkaa lahayd in la soo saaro haddii aan la haysan drillada noocaana. marka mashiinadaas beeraha loo isticmaalo waxyaabo fara badan oo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. faa'iido aan caadi ahayn ayayna beeraha kusoo kordhiyaan adduunka. haddii Soomaali aan nahayna waan ku liidanaa, inkastoo cagafyadu waddankeena ay joogaan qalabka cagafyada lagu xiri lahaa aad ayaan ugu liidanaa, waa naga maqan yahay. hadda kan oo kale tusaale ahaan cawskii la jaray ayuu laalaabayaa si meelo kale loogu safriyo ay sahal u noqoto. kan cagafka lagu xirana wuxuu jarayaa weedskii ama haramihii beerta dhexdeeda ku jiray. kanna ciiddii ayuu simayaa. kanna wixii cudur ahaa oo inta lagu xiray cagaftii ayaa easy tahay ama si sahla ay tahay in lagu buufiyo beertii oo shaqadii muhiimka ahayd intaas oo qof loo dirayay oo waqti badan uu ku baaba'ayay hal qof ayaa si sahal ku qabanaya. tanna dabcan waa taqaaniin, waa midii markii dalaggu diyaar u noqdo lagu soo guranayay. tanna waa drillkii aan hadda ka hadlaynay. marka sababta aan u soo qaadanaya waxa weeye arrintan in qalabkan uu aad muhiim ugu yahay wax soo saarka haddii aan rabno waddanka inaan wax ka bedelno, oo uu ka mid yahay midkaan ka hadlayna maantay oo drillka ah oo shaqadii hal mar isla qabanaya, abuuristii iyo nafaqadii lagu shubayay beerta. marka drillada beeraha loo isticmaalo qaar abuurka bes ayay duugaan oo nafaqada kuma duugaan, qaarna nafaqadii iyo abuurkii oo mirtii la gelinayay meesha ciidda dhexdeeda ayuu hal mar isla qabanayaa. marka kaartadan fertilizerkii iyo mirtii hal mar la isla qabanayo oo la isla duugayo halka saf la isla gelinayo waa arrin aan ku cusbayn adduunyada oo waqti dheer la isticmaalayay. marka waxaa la samaynayaa fertilizerkii ayaa hoos la marinayaa, mirtiina waa laga kor marinayaa. nooca marka la isticmaalo oo fertilizerkii iyo hal mar isla gelinaya mirtii waxaa loo yaqaanaa seed cam fertilizer drill ayaa loo yaqaanaa. seed camka marka wuxuu leeyahay laba box oo waaweyn ama halka box ayaa la kala qaybiyaa oo laba qaybood oo kala go'an ayay noqonaysaa. qaybna markaas waxaa lagu shubayaa fertilizerkii, qaybna waxaa lagu shubayaa mirihii. wuxuu kaloo wataa qaybtii jaraysay ciidda si miraha ay si sahla ugu galaan ciiddii, qaybta kalena ay ka daba timaado oo ay sidaas ku duugto mirihii. marka mirtii iyo fertilizerkii markii hal mar uu isla geliyo kabacdina ciiddii asagaa dusha ayaa ka saaraya. marka shaqadii oo dhan hal mar ayuu isla qabanayaa. waxaa ku badbaadaya marka shaqaale fara badan, waxaa ku badbaadaya shidaal fara badan, hawl fara badan, iyo cuntadii ood ku soo saarto si ka raqiisan sida aad ku soo saari jirta haddana qalabkan aad isticmaalayn ayaa ka faa'iidaysaa. xitaa marka waxaa jirta mararka qaar iyadoo lo'doo kale lagu xiro oo aan u baahnayn technical badan iyo teknolojiya badan aan u baahnayn in lagu xirayo kabacdina sidaas ay miraha ku duugayso. marka ma ahan qasab in lasoo gataa kuwa aad u qaali ah oo baabuur waaweyn lagu xiro, kuwa xataa waxaa jira raqiis oo ayagoo yaryar inta lasoo gato baabuur yaryar lagu xiri karo ayaa jira oo la isticmaali karo. laakiin dabcan waa jiraan kuwa baabuur waaweyn lagu xiro oo xitaa nafaqada la isticmaalaya ay tahay biyo. meeshii laga isticmaalayay tii qalalneed mid biyana waa la isticmaali karaa, midda qalalna waa la isticmaali karaa, labadaba waa la isticmaalaa. marka kaartada noocaan ah oo la isticmaalayo drillka in hal mar la isla geliyo inta badan waxaa loo isticmaalaa phosphorus iyo potassium fertilizerada la yiraahdo
weliba markii la duugayo dalagyada loo yaqaano cereal cropska markii la duugayo ayaa loo isticmaalaa. sababta marka loo isticmaalayo fosforaska iyo potassiumka waa fahmi kartaa, marar badan ayaan ka hadalnay. waxaa laga yaabaa cusbada saa'idka ah ee nitrogenka haddii seedka loo dhoweeyo inay dhaawac u keento oo hadhow ama mirtii aysan marka horeba soo bixinba, ama hadhow markay mirtii soo baxdo ay soo bixitaankii dhaawac uu ku gaaro oo ay ku gubato. marka sidaas darteed haddii xataa la isticmaalayo nitrogenka wax yar ayaa laga dhigaa ama waa laga fogeeyaa, laakiin aad waxaa loogu isticmaalaa kaartada noocaana fosforaska iyo potassium fertilizerada ah ayaa aad loogu isticmaalaa. markasta laakiin in qadar yar oo habaysan oo loogu talagalay bes waa in loo isticmaalaa si isan dhaawac uga imaan oo isan lacagtiina kaaga khasaarin. marka markasta waa muhiim in qadar yar la isticmaalo lagana fogeeyo mirta soo baxaysa ama geedka yarkaa soo baxay aan xididkiisa la saarin, si dhaawacaas ay u noqoto cusbadii mid kala qaybsan ee hal meel aan isugu urursanayn oo dhaawac gaarsiinayn waa inay noqotaa. marka sida aan sheegnay systemkan haddii la isticmaalo faa'iido badan ayaa naga soo gelaysa, waddanka kasoo gelaysa, beeraleyda kasoo gelaysa oo wax soo saar saa'ida leh, seedkii badbaadinaysa inuu khasaaro, shaqaalihii wixii oo dhan faa'iido weyn ayaa ugu jirta waddanka. haddii qalabka noocan ah cagafyadii way yaalin waddanka, keliya un qalabkii lagu xiraya cagafta ayaa ka maqan waddanka. marka qalabkaas haddii la keeno faa'iido weyn ayaa ugu jirta waddanka insha allah. midda kale oo aan rabno videogan inaan uga hadalno oo localized placement ka mid ah waa waxa loo yaqaano side dressing. marka sidaan hore u sheegnay marar fara badan oon ka hadalnay videogan uga hadalnay, marar badan aan ka hadalnay, qaabab badan ayaa jira oo fertilizerka loo gaarsiiyo xididka geedka. marka side dressing waa mid ka mid ah qaababkaas oo nafaqada weliba nitrogenka ayaa side dressing loo isticmaalaa, ee isaga looma isticmaalo fosforaska iyo potassiumka, nitrogen ayaa loo isticmaalaa. marka ujeedada aad side dressingka u siinaysana waxa weeye dalagyada waa inaad energy aad siisaa geedkii oo baxayay xilliyadii koritaankiisii intuu ku jiray gudaheeda ayaad siinaysaa enerjiga uu ku kori lahaa geedku. kaba soo qaadba markii uu miraha saarayo kala camal intuusan wax yar saarin miraha ka hor ayaa nafaqada siinaysaa si miro xoog leh oo khatar ah uu u saaro xilligii ku habboonaa. marka side dressing maxaa laga wadaa? side dressing sida magac aad ka dareemaysid waa nafaqadii oo lagu daray dhinacyada xididka ama geedka meesha uu ku taagan yahay stemkiisa, oo aad nafaqadii aad ku shubto ayaa la yidhahdaa saf aad geliso. geedahoo kale waa geedo saf ku jira oo row ah, geedaha safka ku jira ayaa loo isticmaalaa. marka ama geley ha ahaato ama yaanya ha ahaato, geedaha safka ayaa safkii ayaa raacinaysaa, sentimitirya yar ayaa umbaad xididka ayaa geedka salkiisa ka durjinaysaa, dhinacii kasoo horjeeday oo safkii kalena sidoo kale ayaa samaynaysaa. saas ayaa marka side dressing laga wadaa. way jirtaa mararka qaar waxaa dhacda beeraleyda qaar in ay nafaqadii oo dhan ay siiyaan hal mar markii ay abuurayaan inay beerta ku shubaan, kabacdina aysan mar dambe ku shubin oo nitrogenkii oo dhan xilliga hore ay siiyaan. dabcan fertilizerada kale oo sida fosforaska iyo potassiumka xilliga abuurka unbaa la siiyaa ee gadaal loogama shubo, laakiin nitrogenka xitaa laftirkiisa dadaa waxay siiyaan bilowga hore keliya. laakiin dabcan taasoo kale kuma anfacayso haddii ciiddaadu ay tahay ciid jilicsan sida sandy soil oo kale hadday tahay ama roob saa'ida uu ka da'o, waxaa fiican inaad u kala qaybisid oo side dressing aad samaysid, marka horena aad nafaqa siisid. side dressingka marka si loo sameeyo xitaa mishiinaro waa la sameeyaa oo waa la isticmaalaa, mishiino la isticmaala ayaa jira oo side dressing ahaan loo isticmaalo oo lagu shubo. dadka awooda oo haysta mishiinadaas oo kale waa qaali dabcan. marka tan broadcastingkii aan hore uga soo sheekaynay way ka duwan tahay oo ahayd in dusha looga firdhiyo. marka broadcasting waan sheegnay inaysan geedaha qaar aysan ku habboonayn. hadda cawskan oo kale ama geedaha aadka isku dhow sida bariiska oo kale waa loo isticmaali karaa broadcastingka oo nitrogenka ah, laakiin geedaha sida galeydii ama dalagyada kale fogfog oon xididadu isku dhoweyn ama yaanyoo kale kuma fiicna broadcastingka oo hore ayaan uga hadalnay. marka haddii aadan haysan machinery aa u isticmaasho side dressingka, waxaad samayn kartaa marka inaad ciiddii aad ku qastid dhinaceeda inta dhigtid, geedihii dhinacooda inta dhigtid inaad ku qastid ayaa samayn kartaa. sida aan sheegnay nitrogen fertilizerkii ayaa dhinaca dhigaysaa, dalagyada sida galeyda oo kale, sugar cane oo kale waa ku qasaysaa, kabacdi dalagii baxayay salkiisa ayaa wax yar ka fogeynaysaa, kabacdina waa ku qasaysaa. sidaas ayaa la sameeyaa. laakiin dabcan haddii aa haysatid geedo aan isku dhadhoweyn oo aan saf ku jirin oo xoogaa kale fogfog, markaas waxaa samaynaysaa geed kasta agtiisa ayaad xoogaa ku shubaysaa si aysan u khasaarin, ilaa uma baahnid markaas inaad saf aa gelisid. sidoo kale dalagyada
babaayga oo kale, cambaha oo kale, liin dhanaanta oo kale haddii aa haysatid oo ay kala fogfog yihiin, dabcan waana kala fogfog yihiin, waxaad samaynaysaa inaad mid kasta geedka agtiisa aad ugu wareejiso ood ugu shubto side dressing oo ciidda saas wax yar ugu qasto kabacdina aad ku waraabiso. sidaas ayaa samayn kartaa. marka waxaan rajaynayaa inaad videoga ka faa'iidaysateen. intaan video kale kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo beerasho wacan.